taliyii hore ee hay-adda sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa si cajiib ah oo laabfurnaan leh uga hadlay geerida sareeya guuto Farxaan Qaroole. Waxa uu ciwaan uga dhigay Farxaanow naftaadii dalkaadaad u hibaysay, geeridaadiina quluubtii dadkay midaysay. Ararta qoraalkiisa ayuu ku yiri kumuu ahaa Generaal Farxaan Maxamuud Aadan Qaroole. Waxa uu yiri waxa uu ahaa wiil dhalinyaro ah oo gaaban oo misana caata ah oo hadana baryar bashaash ah sida magaciisa ka muuqata aad ayuu Farxaan u ahaa ayuu yiri. Fariidnimadana wuu dhashay ayuu raaciyay. Fiiro dheer, hadal yar, misana qorshe dejisan kara, qarankiisa iyo madaxdiisana daacad u ah, dhiigiisa iyo dhididkiisana u huray dalkiisa, godkii jannadana u galay insha Allah ayuu raaciyay isagoo difaacaya sharafta iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed. Fahad Yaasiin ayaa qoraalka sidoo kale ku yiri magaciisa siduu u faafay, siduu u jin yaraa iyo da'diisa siday u yarayd, intaas kaliya sabab uma noqon karin buu yiri darajada uu gaaray ee wuxuu maqaam sare ku mutaystay ayuu yiri daacadnimada, howlkarnimada, wadaniyada iyo qaran jaceelka qalbigiisa ku abuurnayd. Fahad waxa kale oo uu yiri wuxuu ka mid ahaa Farxaan Qaroole dhowr dhalinyaro ah aan ku bartay shaqada amniga iyagoo ah saraakiil dhexe, wuxuuna aad u jeclaa buu yiri inuu mar walba wax barto oo uu aqoon ciidan korsado. Wuxuu qayb ka ahaa ayuu yiri ciidankii laga wareejiyay nabad sugidda ee loo wareejiyay booliiska. Ma uusan iska dhigin sargaal xil raadinaya ee wuxuu la xirooday askar tababar loo xareynayay oo lagu aasaasayay ciidankii Haramcad, wuxuuna galay dufcad tababar ku qaadatay Xamar iyo Turkiga. Wuxuu soo laabtay isagoo helay aqoon booliis iyo tababarka howlgalada gaarka ah, waxaana loo magacaabay ayuu yiri taliyaha ciidanka gaarka u tababaran ee Haramcad. Fahad Yaasiin oo ammaanta Farxaan Qaroole sii wada ayaa yiri wuxuu lahaa sifo ay aad ugu yar tahay hogaanada ciidanka, taasoo ah inuu saaxiib dhow la ahaa ciidanka uu madaxda u yahay iyo inuu daacad u ahaa qarankiisa. Dowladihii kala duwanaa ee dalka soo maray intaba si daacad ah ayuu ugu gudanayay shaqadii qaran ee loo igmaday ayuu yiri, waana sababta dowladii timaadaba ay u aamintay oo uu mustaqbalkiisa marba marka kale uu horumar u gaarayay. Waxa kale oo Fahad Yaasiin qoraalkiisa aad u dheer uu ku yiri saddex qolo ayaa mudan inaan uga tacsiyeeyo geerida xanuunka badan ee ku timid walaalkeen haliyey Generaal Farxaan Maxamuud Qaroole. Qolada koowaad waa qoyskiisa ayuu yiri oo ay ugu horeeyaan waalidkiisa, xaasaskiisa iyo caruurtiisa. Waxaana leeyahay buu yiri geeridu waa xaq ee samir iyo iimaan Allah idinka siiyo, marxuumkana jannada Allah ha geeyo ayuu yiri, ilmihiisa iyo qoyskiisana Allah ha dhowro oo ha barakeeyo. Waalidkiisa ayuu yiri waxaan si gaar ah u leeyahay qadarta Ilaahay raali ku noqda, rabbigii abuuray ee koonka keenay baa haddana naga cishtay. Qolada labaad ayuu yiri waa madaxweynaha iyo ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Mudane Xasan Sheekh Maxamuud ahna taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. Waxaan leeyahay ayuu yiri Fahad Yaasiin mudane madaxweyne waxaan kula qaybsanayaa xanuunka iyo tacsida geerida ku timid Generaal Farxaan Qaroole oo maanta shahiiday isagoo gudanaya waajibka qaran ee aad fartay oo ah la dagaalanka argagixisada. Madaxweyne samir iyo iimaan Allah ka siiyo ayuu yiri. Waxaan ku rajeynayaa buu raaciyay inaad ku guuleysato horumarinta tayada ciidanka iyo nabadeynta qarankeena. Sidoo kale ciidanka booliiska ee uu ka mid ahaa Generaal Farxaan Qaroole waxaan ku sii adkeenayaa in geerida shahiidka qaranka Farxaan ay ku dhaliso dhiiranaan iyo dhiiga iyo dhididka in loo shubo ama loo huro dalka iyo dadka Soomaaliyeed. Qolada saddexaad ayuu yiri Fahad Yaasiin waa shacabka Soomaaliyeed. Waxaan leeyahay buu yiri ogaada in dalkii ay u kaceen dhalinyaro wadaniyiin ah, leh xirfad iyo tababar ciidan oo sare, qarankoodana daacad u ah, kana mid ah qaybaha kala duwan ee ciidamada qalabka sida. Sidaa darteed buu yiri boqolaal Farxaan oo kale ah oo booskiisa buuxiya shacabkooda difaaca waxaan leenahay oo way noo jooga. waxaana Ilaahay ka baryeena buu yiri in madaxda qaranka uu haleeshiyo in ay soo saaraan awoodda iyo tayada dhalinyarada kor u qaadi kara rajada iyo niyadda shacabka Soomaaliyeed. walaalkay Farxaan ayuu yiri asoo sii hadlaya Fahad Yaasiin waan ogahay inaysan ku soo gaareynin fariintan, laakiin
waan ku qasbanahay buu yiri inaan kuu soo diro adiga oo xitaa marxuuma. Farxaanow ayuu yiri inaad jid xaq ah ku dhimatay, inaad dalkan daacad u ahayd, inaad sargaal qaran ahayd ood ka sareysay siyaasadda. Waxaan ku gartay madaxdii ummadda Soomaaliyeed oo dhan khilaaf kasta oo dhexdooda yaalay intay gees isaga dhigeen waxaa mideeyay inay ku wada duceeyaan, ku wada aamineen, iyagoo ku wada jecelna aad shahiiday. Naftaadii dalkaad u hibaysay, geeridaadiina dadkay midaysay. Rabbigay jannada guriga kaaga yeela ayuu yiri, dambigaaga adduun xasanaad Allah kuugu bedelo, annagana gadaasha eebe nama fidneeyo ayuu yiri la taliyii hore ee amniga qaranka Fahad Yaasin.